asxaabta soo dhawaada ku soo dhawaada channelka Fatax Abukar. Maalin wanaagsan, habeen wanaagsan, fiid wanaagsan, waqti kasta oo ay idin tahay. Runtii maanta social media waxaa trending ka ahay gabadha fanaanada Habboon Nuura oo Muqdisho timid rabtana inay qabato Muqdisho show. Horta gabadhaas waa gabar Soomaaliyeed, waa gabar walaasheena. Somaliland iyo Soomaaliyana waa dad Soomaaliyeed, magacii la rabo ha la qaato, haddii la rabo ha la dhaho waan go'nay, laakiin waxaa xaqiiqo ah in la yahay dad Soomaaliyeed dhammaan la is xushmeeyo, la is qadariyo, la is wanaajiyo. runtii taas waxa waaye si guud Soomaalinimada iyo walaaltinimada. gabadhan waa qof dumar ah, haddii timid Muqdisho waa magaaladeedii in loogu soo dhaweeyo way mudan tahay, inay show ku qabsataan waa mudan tahay. cid muxuu ahaay qof walbaana waa inuu xushmeeyaa, soona dhaweeyaa. muhiimaduna caasimadda Muqdishona waa la wada leeyahay oo Soomaaliya oo dhan ay ka dhaxaysaa. qof kasto Soomaaliya oo yimaado caasimadda wuxuu xaq u leeyahay inuu show ku qabsado, wuxuu xaq u leeyahay inuu muxuu ahaa ku damaashaado. cid ka hor istaagi karto ma jirto. taas waa sida guud walaaltinimada iyo Soomaalinimada. markii laga soo tagay intaas, waxaa gef ah oo gabadhan walaasheen aan runtii ka mid ahay dadka ka soo horjeedo ficilkii ay ku kacday. runtii sida ay u dhaqantay ma ahayn si sax ah, maxaa yeelay heeskaas wuxuu dhaawac iyo sharaf dil iyo bahdil ku ahay ummadda Soomaaliyeed, khaasatan reer Muqdisho. runtii hadda qaladkaas ma taagno oo waa u dhacay. gabadhuna qayb ayay ka ahayd fanaaniintaas iyo heestaas. hadda marka ayada maxaa u bannaan? waxaa u bannaan horta waxaan leenahay ku soo dhawaaw oo maaragtay muxuu ahay waxaan leeyahay lagu soo dhaweeyay magaalada Muqdisho, waa magaaladeedii, ha la qadariyo, ha la xushmeeyo. gabadha waa qof dumar ah, laakiin ayada maxaa la gudboon? ayada waxaa la gudboon inay raaligelin ka bixiso gafkaas, ay tiraahdo waa ka xumahay heestaas inaan ka mid ahay, waan ka xumahay inaan maaragtay muxuu ahay ka qayb qaatay, inaan muxuu ahay aflagaado iyo erayo aan ku habbooneyn loo isticmaalo caasimadda ummadda Soomaaliyeed ee Muqdisho. waa inay raaligelin bixisaa. mar alla markay raaligelin bixiso, shacabku waa inay aqbalaan raaligelinteeda, showgeedana waa inay qabsataa. laakiin haddaysan raaligelin bixin, waa gaf iyo meel ka dhac ummadda Soomaaliyeed, khaasatan reer Muqdisho. reer Muqdisho waxay mudan yihiin xushmad iyo qadarin, sida Hargeysa u mudan tahay xushmad iyo qadarin, sida Kismaayo u mudan tahay, sida maaragtay Dhuusamareeb u mudan tahay, sida Baydhabo u mudan tahay, sida Jowhar u mudan tahay, ayay u mudan tahay Muqdishona in la qadariyo oo la xushmeeyo, sida Garowe u mudan tahay. marka muxuu ahaay adiga hadda i daawanayo inaad hees Hargeysa wax loogu sheegayo aad ka mid noqoto adoo fanaan ah, haddana tiraahdo Hargeysa aan tagaa show aan ku qabanaa, ma suurtagelayso. aniga oo aan fanaan ahayn oo qof shacab ah, shakhsi ah, haddaan wax ka sheego Somaliland maanta, inta Somaliland taga ku nabadgeli maayo, waxaan galaa xabsiga, waa ila xisaabtamayaan. adiga adiga daawanayo haddaad tahay fanaan oo aad Hargeyso hees Hargeysa lagu kala baashaayo aad wax ka samayso ama aad ka qaado, markaad Hargeysa tagto Somaliland waxaa ku sugaya xarig, waana kula xisaabtamayaan reer Somaliland. maxaa diidaya marka reer Muqdisho qofkii ku gafo meel ka dhac maaragtay muxuu ahaay hadalla aan habbooneyn maaragtay social mediaha u marayo, ama weliba haddii ahaa leed xataa muxuu ahaay Soomaali dhexdeeda waxbay ahaa lahayd, ajnabi kala saftay weliba yiri maaragtay muxuu ahaay heerkaas gaaray. runtii waxaa gabadhaas waajib ku ah inay raaligelin bixiso ummadda Soomaaliyeed, khaasatan reer Muqdishona ay tiraahdo ay raali noqda, walaalayaalow waan qaldamay. muxuu ahaay xataa diyaaraan u nahay, shacabka reer Muqdisho diyaar u yahay inay ka aqbalaan raaligelinta. waa hadday tiraahdo gaf ayaan galay, waa ka xumahay heestaas inaan ka mid noqdo,
ama aan ma aragtay muxuu ahaay ereyadaas aan qayb ka ahaado laakiin hadda waxaan diyaar u ahay inaan idin raaligeliyo oo aad aqbashaan raaligelinteeda waa codsi showgeena aan la hor istaagin ee aan si nabad ku qabsado inta sidee tiraado gabadhaas waa in showgeeda loo ogolaadaa si nabadna ay ku qabsataa waliba la dhiirigeliyaa oo la taageeraa aniga talada aan soo jeedi lahaa runtii waa intaas muxuu ahaay intaas ayaa runtii gabadhaas ku waajib ah midda kale oo la sheegayo oo arrimaha amniga iyo khataraha jiro waa dhici karaan inay khataro amni jiraan waa dhici karaan sida hadda facebookyada aan ku arkay oo safaaradaha maaragtay reer galbeedka inta badan ay sheegeen markasta oo laamaha amniga waxaa la rabaa inay fuujignaadaan taxadiraan runtii dalku xukuumaddu leeyahay dowladda ka jirto madaxweyne xasan sheekh ayaa hogaamiyo nidaam iyo kala dambeyn iyo shuruuc ayaa jirto dowladnimo jirto in la ilaaliyo dowladnimada iyo nidaamka iyo shuruucda ciidamada ama laamaha amnigana waxaan u sheegaa runtii shacabka reer muqdisho waa inay qadariyaan waa inay xushmeeyaan qofkii shacabka ku gafo ama caasimadda muqdisho maaragtay muxuu ahay hadallo maaragtay gaf ah u isticmaalo waa inay bannaanka ka istaagaan lana xisaabtamaan waxa ku kaleefo qofkan la weydiiyo raaligelin cadna oo ka bixiyo ee aan shacabka lagu khasbin ama aan lagu jujuubin ama aan is-hortaag lagu sameyn qofkii dulmigaas geystane aan lagu taageerin dulmiga iyo meel ka dhaca uu sameeyey marka intaasaan dhihi lahay runtii gabadhaas waxaa waajib ku ah inay maaragtay muxuu ahaay ka noqoto hadalladeedii raaligelin cadna ay ka bixiso kadibna loo ogolaado showgeeda intaasaan dhihi lahay sida kaleeto waxaa waaye jawigu waa okay marka waana waajib ay ku tahay gabadhu inay hadda raaligelin ka bixiso haddaysan ka bixinayn raaligelin ay tiraa ma ka bixinayana ha ku noqoto somaliland oo meeshii ay ka timid ku noqoto maxaa yeelay shacabka reer muqdisho ma mudno gaf ma mudno edebdara ma mudno waxay mudan yihiin qadarin iyo sharaf iyo karaamay mudan yihiin sida shacabka reer somaliland walaalaheen ee reer hargeysa ay u mudan yihiin sharaf iyo karaamo iyo qadarin u mudan yihiin ayay shacabka reer muqdishona u mudan yihiin in la qadariyo la xushmeeyo marka intaas uma dhaafaayo gabadhaas walaasheen raaligelinaha ka bixiso intaasaan dhihi lahay waa mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullahi